شيك قدوبتي warku gaaray dariskee go'yaha magaalada dadku ugu garamayee laaqiyo wagadeedii laaqiyo wagadeedii laaqiyo wagadeedii laaqiyo wagadeedii sidada noo gelaysaa kulli wadaag ku racano dafka nooga kaayimi iyo godobi kugu maqan laaqiyay kulli godobi kugu maqan laaqiyay kulli godobi kugu maqan gariyo xariiqi nabsigii aad ku raato soo mara gurgurtay waxaad galabsataa iman laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay laaqiyaad galabsatay kayan labo istorto كل رير كدغيبان سو غبغبيسو كوريغودي دوميسي لاقياي كوريغودي دوميسي لاقياي qaybtii hore laaqiya iyo loorkii jacaylka kayan labo istorto كل رير كدغيبان سو غبغبيسو كوريغودي دوميسي لاقيا يا ابو هو في عنا بسيتها خير ابي صافي لصبر واي سيتها زيادة هو في عنا ابو ابو سيتها في عنا ابو سيتها في عنا اريك محوها ابو وحوها هويو ايان ما انت سرقنا هويا مسرقنا يا هويو ما دي هويدا واني هويدي هاي anagoo halka maanta inta suuqa yar gaar aan jidka ka soo socdo baan kib meel iskaga nidhi hay الله هوي halkay ku arkay waxay ku weydiinaysaa marka waxay weydiinaysay arrin baan kula socdaabay arrin ku socon kartaa waa maxay nooc ma hooyada iyo adigu meelan kala dhamaanaynba arrin meenaas ku ogeyn dee baarnika weyn isku wala arrin ba dooga qashaabay arrin bay kula iman kartaaba daa bay markaan Axmed waxa isku afmaan weynano erigan saa uu iska booday horta bal dhageyso aqliba ma haabo waxaan bal ka ballan weeyaan horaan uga ballanay Axmed weyn adigu hooyada hore daba khasar Axmed macaan horta bal waxaan ku soo wada balaaboortamada dhageysatid waxaan dhageysan hooyada ma maqli karaaba iyo waan aragnayba
miyana ka ballamin hooyada inaad asarago inaad waxba ku darsanin dee aabahay qof wuxuu ku soo warto warba aaba macaanuuma haysidee wartan qofka wax ka samaha axmed daamka isagoon waxba ay weydiinin hooyadayda nadhan hooyadayda albaabka uu ka baxay hooyada baan qareena wanaag ba soo wadi man garanaya aab dee iyadu yeen haba doonto wanaag soo wadinay horta inaan aqbalay iyo inaan aqbalin wax ila socotay horta maad weydiisay way daaba in iska sugaa fiican haye bal isagoon hubsan buu imika waxaan ku kadinka ka booday waxa laga boodin ba anigu hooyadii arrin bay ila timid ya haye iyadoo hooyaday haysan ka dhaqaaqeen hooyadii oon u joojinin haye saxad gartay maaha arrinka aniga ila timiday baa hooyaday ninkii guursaday tiyareed hani hay ninkii baa waxa la yiri gurigii hantidii kala wareegi guriga anaga naga soo saartay dee naga soo cayris u hagaajiyay haye ya haye gurigii ayuu waxa la yiri ninkii kala wareegay xujadii waa garta أنا ملبو كسب حنيك أسواني أصل waxaan ka doonayaa bay igu tiri hooyo inaad Axmed ila hadashid oo maxay tiraahday oo tiraahdid cadayn baa la iga rabaaye intu iraaco inuu iraahdo ana yaradu siiyay guriga maxaad ku tiri markaad daabay sugan ku sawaday haye sheeg waxaad ku tiri la hadalkaysan diidayaabay tamayaan hadalkayga hooyada ma yeelini aan iyadoo ila hadlaysan hooyada ka dhaqaaqay haye ya oo fiicanta haye fiicnida macaan hooyadeen waxay doontaa taa xumaata samatawaati dhashay hadana uma joojin maanta tan ugu joojin waayna waa Axmed darti صح iyo balantii iyo dhibaatada ay dogada marisay waan gartay anu hooyada teelay ma dhigan Axmedna teelay ma dhigan ya waan ogahay waxay soo marisay marka waxay tiri gurigii waxaan rabaa intuu iraaco cadayn baa la iga rabaaye inuu iraahdo guriga aniga siiyo yarad banu siiyay guriga iyada leh aye anigaana ku qoray aye marka hadii cadaynta aan helo oo sida la yiraahdo cadaynta la iga sugayay gurigi wii soo noqon haye hooyo dhigaysa baan ku hor ballan waxaan ka qaaday Axmed inaan anigu shaqo inaan ku darsan ma qalbaad ka sheekaysan xataa haduu isku keen arko inuu Axmed shaqo igu yeelanaynin gartay tiina way rumoodo hooyada hadalkeeda marka ka soo qaaday Axmed kadib ku ka boodi waa gartii isagoo warta waxaan u soo wadaba ogaa hubsanino dee baltana maxay wadaa aan isdhihin tawaayo wuxuu hooyada inagu samaysay isagoo ogyahay ha ninkan aboonin bil aadan nin kasto ogaa wixii samaysay hooyada arinta hadalkeeda uu ka booday adoo alxaasi almuraad markii halkii hooyada gurtay anu Axmed baan ku arkaa ulama tagi karo hooyo laakiin mid baan ku samayn karaa baan ku hadii lagu barabixiyo gurigii laga saaray baan ku anu inta guriga ku kureeyo aniga inantaadi ahaan wax wadi weydiisan kartaa hooyadina waa taan oo kugu leedahay hooyaday inta sanadi laakiin Axmed uma soo qaadi kartid baan nari صح yadna Axmed uu baytiri صح anu halkii iyadoo taagan hooyaday hayso hadlaysa ayaan hooyaday kaga dhaqaaji fariid laakiin abatu kasta wax ka daran imika Axmedna isagoo xubsan baalka ka dhaqaaqay dib isku markay inuu weeydi hadaba hooyada mar dambe soo dhexgelisay ya hooyada hadaba mar dambe soo dhexgelisay shaqo isku ma leeyahay soo qadintaa marka waa soo qadinto tiro hooyo arniyo timid oo markiiba aan diiday arrinka meesha su'aali jawaabteed ta leerto waxaan iriyo waxaan isku nariinay hubsado sama ogaado wixii xanuunka garanaya soo maray anigana uu khalad fahmo wixii siri malaha day wixii shalay toole ay kugu samaysay hooyada maxay geeyay kan geeyay iyo guri wixii bay soo wataa ay soo wadataa gartay ya gartay wuuna iska cararay marka aba waxaan kaaga baahanahay anu telefonkiisa waan garaacay wuxuu xidhan yahay message baan u diray iguma soo jawaabin marka aba waxaan u baahanahay bal intaad u yeedhid ya inaad bal iska fahansiisid صح oo bal sheekadu sida ahayd anu odagtay aba waxaan hooyada uga soo fogaaday in cid kasta uga soo fogaaday hooyada marka gurigeyga la wareegaysa ereyga ay tirsamay hayn Axmed hadii aad ifurtira warqadaada ka qaadatid guriga waad ku soo noqon sameeyeen arrinta igu tirooyaday waxaan uga soo gaysay isaga dartii ma ya in banaanka u imiday marka aba macaan bal iska fahansiyo ya والله bal hadalaabo والله abo la hadalo dabal sheekadu sidee tahay isaga xubsan uu iska booday taasna la yaab malaha dhibaatadan ogeyd baa soo martay ab oo lama yaabani laakiin uu xubsadun bay hayday bal garaaca bal markiis ayaa والله هاو احمد هلا بابا في عنا ابي بقرن ادنا ابو في عنا ابا gurigi waa jooga kowdhi mariyam ma ii warantay هاي inaad ka degdegtay oo ka caratay way sheegtay يا ابو ما ابو اك
ما أبغى مساعد مدي ما هي وإذا اسفهمينوني أنا قاعد في أنا قرنتي قولي قول شو بس تمن دقيقة وسوكر أيه أبو أخوي من ها ولا استورن وإلهي ما هدي ولا اللي بلور الله ولا على ساعتها خير وافي عنها هي الله ولا ما حق وايا سكرات انا سكرات maxaa yeeli lahaa ma talbaa taado tal iyo qaraabatoona ma tiide tal iyo qaraabatoona ma tiide soo maxaa walaal la dhacay xalli waxaan ku sheegay garan maayo walaalo xalli waxaan ku sheegay garan maayo walaal waxa igu dhacay la qoomiyad wariyaysa waxa igu dhacay wax loo sheeg bal maxaa dhacay halka ka socdo miyaad ogtahay iminka maxaa ku haya waxaan ku yiri inantii yarayd inantu waa teedii yaa waa hani haniya ha maxaa ku dhacay bisinkee waxa ku dhacay kii xumaaya guursaday soo ani inantii yarayd intuu qabtay waxaan ku yiri guriga xumaadii ha ku dhali wiilka ilaa sodoh baad u ahayd warka uu xun yahay ninka guriga iga dhacay weeyaan walaal ninka guriga iga dhacay weeyaan socodka imkaan socdo waxaan ka imitay komishinka booliska gurigee laga dhacay gurigii Axmed isiiyay ee aniga yaradka la ii siiyay walaalo waxa weeyaan gurigii iga dhacay gabadhii yarayd buu sasabtay Axmed waxba kuma siinina markii aad dhacday baa laga dhacay war heede xamaana dhicin anigu weyn u soo weynaan ma Axmed baa wax ku siiyay waryaa mid ma ku sheega waxaan qaatay sheeg war anu mid ma ku sheega ha imika komishinka ka socda komishinka booliska oo maxaad ka doontay dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaan ka socda hadda saacada yarkay maxaad ka doontay waxaan ka doonay inantii yarayd ninkii baa sasabtay daadu sasabto soo ma qabin sabada ma aha walaalo sabta hadalka ma diga koobisid hadal badnida ma xiidan baa tahay ay mar laaliya marka ku arko baan anigu waxa weeyaan adigu xanaasano baad inta badado faraxsan walaal oo walaalka u tagayo oo bacyaal wato oo soo adeegay oo dawla adigu cabanayo baad inta baday miyadan mar adigu faraxsan imanayno markuu soo walaalkay ma tiid soo hooyada yaabahay kuma hadayna dhaleen wayna dhaleen haday ku dhaleen marka dhibiga soo gudboonaata in qofkii aan la tashan lahaa soo matiido walaal markuu farxadi kula soo gudboonaata ma diiti ma dhibka u baad yara timaada hadba walaal waan ku sheegay adun baa dhanka iga dhaafsan hadda maxaa jira waxa weeyaan imika warka aan ku wada horta iga koobnaay xanuunayo hadal ma karayo ma garatay hadal ma karayo wallahi madaxaas ay xanuunayo saasoo dhan waxa gebigaygu ba sakaraad baan ahay isteejiyo walaal wad bal waxaan ku inantii yarayd hani waanigi guriga ku wareejiyay gurigii Axmed siiyay aniga walaal waa labadeeni anigi bad xataa ii sheegaysaa waxaan jirin gurigii wadnaay xanuunaya hadal badan ma kala ay dhageyso de walaal isagoo wadnaha ku xanuunayn maadiiti maadi runtaa inuu isku cadcadayne dhageyso gurigii waanigi gabadhii yarayd ku wareejiyay ay gu tiri hooyo ya ku wareejiyay war magaceedii baan ku qoray gabadha hani baan ku qoray sidii lagugu qoray bad hani ugu qortay deetana ninkii baa ka dhacay oo iyadoo ninkii baa ku sii qortay habeen madow buu sheekeeyay dambe way dhici jirtay halkee ka dhacday tan ka hor ma dhicin de sawtiyaad ba lagugu qoray war taasi bareero igu qoray isaga ila jeclaaday aniga warka badan iska daayo heede hada badan tahay de haya weeye walaal haye imika arrin baan kuugu imiday haye waxa weeye ninkii wuu i dhacay gabadhii gurigii buu ka dhacay anigii wuu i dhacay gurigii buu iga dhacay waa ku ina gabadha guriga mayna lahayne ku meel gaar ahaan baan ugu qoray gurigii hadduu iga dhacayna waa soo dacweeyay waa ku dacwadii haddaan soo dacweeyay askarigu wuxuu yidhi ninkii ku siiyey Axmed صدقه هو أحد صوك حيبة ليش أحمد صوك حيا هي أحمدنا هل كي ولا نوكل مرة سوى دوجي توار توانوجا سو ما جن أوجي إنك واحد إنك هكو عطيه يقولك سوى ما أحمد تاس واحد نقرسه ما لبناك حق علي أحمد أبا أنا أبا واحد كوبيا مريم وين ورنتي وربحنتنا وين سيسي كنا عروتنا وين يشاكتي كرنا وات الله هيدا توحي نصامر سيسلانت أياد أوجي
xanuunku bada daraasana marka ku soo qaatay markii oo ka bootay way sheegtay qarn laakiin aabo marinta ogeyd ma ballantii ay naga qaaday iyo arrinkii aan isku ogeyn way ka soo baxday sidee uga soo baxday hadalku badsigu weydo oo ka bootay aniga marka ii warantay way ii sheegtay waxba ka asmici weydo arrinka u soo dhigtay xitaa in magaaladu la yaabtayba gabadhan hooyada diidaysaa maxay lahayd gabadhan oo magaalada yaabtay oo hooyada dariiqa ka dhaqaaqday ayay ii sheegtay arrinka arrin ay ka yeeshay ma ahayn laakiin arrinka u soo dhigtay waxay ka yeeshay muuhayna way diiday intaas bay damacsanay ku sheegtay arrin ay u soo dhigtay ka ogolaatay oo kuula imanaysay sidii barigi muujirinaaba aab ma la yaban anu lahaa hooyadii baan kulano arrin la isu soo sheegay dhibaatadooda mid uu geystay anagu waan isku xiiqnay intaanay sheekada iyo cadcadaynay anagu waan isku xiiqnay garbay hay taasi marka anu waa daraasad soo marisay marka waxa xumaan ma yimake arrintu waa sidaa waajibkeedii iyo ballantii ay naga qaaday ee ahayd inaan hooyada wax talo oo arrin dambe ay la yeelataa inaan jireen ballantii ahayd sideedaba aab uga soo baxday ma aan waxaan aab ka diiray arrin bay soo sheegtaydii baadii maskaxdayda soo gashay waagi horna arrin in loo soo sheegi jiray tii aan wada ogaanay aan dhamaan goobjoog wahayn baahayd miintay ee dhibaatadooda soo marisay kolkaa man laamaha ku dhacay meel alla meelan joogo kolkaas ma garanayn Maryam Maryam ogeyd maahe waa Maryam go'aan leh haye go'aankeedu adag yahay weeyaan haye oo wixii aan nagula ballantay sideeda looga soo baxday go'aankay aan wada gaarnay ahaa inaan hooyada waxba ka qaadanin dambe sideeda looga soo baxday go'aan bay leedahay Maryam wallahi ana iska faraxsan oo shaqadii tagtis leh oo bay hooyadii baan is aragnay way is arki karaan laakiin arrin bay hooyadii ila timid dii baan anu laamaha ku dhacay oo eegana de waxa dhibo ay kugu samaysaa kuma baahrin ma suuxday ma isku ridbay leedahay imkana oo talow arrinkay wada muxuu yahay arrin baan wadaadii ay tiri ya horta waa runteeda yaan anu kacay go'aan bay leedahay go'aan leedahay ma xasan sax abay marka waxba xumaan waayaan kolkii gabadhu saatiriin baan anu kala fahmo oo aan boodi oo daan wixii iga boodsiina waad garanaysaa wixii iga soo maray arrin baa la isu soo sheegaydaas wixii dhibkii iga soo maray waad garanaysaa marka aabayntii ma ka booday wax dhib oo jira ma jirto hayaab reerkina waa ka dhaqanaysaa hayaab saas koobna hayaab khayr baad rajeynaya hayaab walaal Maryam anu inaan kuma nabci oo ciidan ka jeclay ma jirto laakiin maxaa maskaxdayda kulkii bilaabmi maanahay tamay macaan waan ogahay taas laakiin anigu waa wax fiican kula ay si carrasay baa maxaa ya bani dhibaato weyn baa kusoo martay laakiin deynadu xubsatid baa fiican xubsan kula ay arrinku yahay waa tan imka isla maskaxdayda ku jirta bay aabo arrinta waad ka degdegtay uu leeyahay maada sugnu leeyahay maxay ahayd waxaan xabib anigu hooyo marka saak kulanay arrinta ay weydiinta ila timid waxay ahayd kii gabadheeda guursaday waan garanayaa ma garanaysaa kii gabadheeda guursaday ayaa gurigii hantiga la wareegay haye gurigii la naga soo saacay waan gartay ayuu hooyadii kala wareegay haye hadduu kala wareegay arkay ila socotayna wuxuu ahaa inaad intan aan kuu yeedho oon ku dhaada haddana sidii hooyada yaal oo diraacdid oo maxay ahayd ay tiraahdo maxay ahayd caddaynkan baa lagu heshiis markii gurigii hanti lagala wareegay lagu haddii adiga guriga yarda la siiyo wiilkii gabadheeda qabay bay siiyay bay tiri haddii lagu siiyay maxay ahayd caddayntii keen baa lagu yiri caddayntii de imika waxa kula kaasoo inaga inoo baahan waxay doonaysaa inta adiga ku xiseen dadna inta raacdiyaad ku tiraadid maxay ahayd anaa siiyay oo waa runoo de waa guriga yadaa leh anu ma siiyay xoog wala iga saray aniguna waxaan ku hooyo yaa lagu maqlini yaa lagu maqlini Axmed tu waxaad ka sheegantaa inta hortagtida waxa ku dhahay inaga wada taagan tu arko ayuu Axmed anaga dib igu soo noqonaynin waxa weeyaan sida aad imka u cartun bad u carad leed labadayda dariiq wada taagan dad kale haydo been ba marka hooyo baan ku uri anaga shalay marka laga qaatay Axmed ka qaatay gurigiisa intu soo dacway maro dhigin guriga iga qaaday sadooday way inaga ma dhaxin oo kumuna dhigin adiguna iska dam xadda ku dacweyn baa ku niyada hooyada heesana ka soo dhaqan wallahi marka saasay hayde waan isqadfaana adiga waa isjiri maxaa la hadeem kana sheekadii kale ku wada ma xabibi xasiniga ka gudbnay xabibi anu ismaan lahayn intay isa isjireen bay ka soo dhaqaaqday wad raagtay ma kulaha maanta dhan inaad wixii isku shushubaysaan oo aad eegana qorshe diyaarinta xabibi raala qalad ma isla markuu dhaca
shalay markay gulaad hooyadii marka gurigeena ka saartay dad ninka ka soo hadid guriga waad ku soo noqon maalinta gurigeena gala riso ma xasuusay waan gartay weligii miilo waan xusuustaa waxaan kaaga soo dhawaatay jacaylan ku qabo ma waan ina jecesho waan maadaama laakiin dawaagi dhibaatada ay ugu dhacday nin walba wuxuu kugu dhaca ka cabsan leeyahay خلاص فاهم حبيبي بعدين اكون ساق يلا كسنه بكره جوغا ما حبيبي رالله يا حبيبي رالله waxa inta yareed man ka diireen inkan wax dhibi ma jirto hooyana inshallah waxa ku keentay garama maayay hanti laga qaatay hadana ku maqraati ka ya waa nafsi ya ay nafsi waa marka xabiibi waxaas dhibo warka ya markii asaka aan kolkaas saafaafka u dhaafay hadana waan xoo teleefankiiba intaan damiyay baan hadana sidii waan fadhii kar waayay imka aaba markuu soo garaacay adu ma garaacdaan isla ya xabiibi wada heerkan ku jeclay adii wada ogtay waan jeclay waxaan ku leeyahay si teleefanka daray qablo baad ka dhigaysaaba guriga kama bixin xilma teleefanka xidhat goor is xidhay baan garan waayay soo cadadii man si xidhay kolkii aan ka taagay may xabiibi taa oginaan ku nabcayn oo ciidan ka jeclaysan jirin laantaana aan joogi karin marna way naga dalaga laanta ma joogi karno halka kula joognaa waa jacaylan ku qabnaan hooyada iyo cid kasta kaaga soo go'nay ay xabiibi abayna u sheegto maxaa anigu nigu soo celin weeyo inuu kalon qaboobad ii sheegi lahayd duqiibaad qabob waad booday waxa dib waxaan kuma taqaanay malaha kuma soo noqonayaan sidii haf u baad tiri hal mar telefonkiina laga sidaray qaban baad ka dhigay dalbaab marka ka baxday wallahi aad baan wallahi waxaad qorka xabiibi waxa soo dhinta iska loodo farxadaadan jeclahay qosolkaaga bal qof hal mar ii qosol bal halku qosla farxadayda dad jecesha guriga ka bixin telefonka dansanay miimada sinna xabiibi waxa dhib lama waxa xasuusanaya qosol day hal mar ii qosol hal mar shaqadii inta ilaahay ku dharshay ayo xabiibi saasasku markay sheeka gudubtee warku gaadhay dariskee goonyaha magaalada dadku ugu garamayeen laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii laaqiya waagadeedii sidada noo gelaysaa kulli wadaag ku racano dafka nooga kaa yimi iyo godobi kugu maqan laaqiya